بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شيخ دكتور عبد النور شيخ محمد kusoo dhawow Britania. ayaamahan waa ka faa'iideysanay wax badan. kusoo dhawow Media Dars channel. waxaan rabnay in aan wax yar ka ogaano. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala: wa min shari xaasidin idaa xasad. meelo kalena wuxuu ku leeyahay xasadan min cindi anfusihim, iyo laba aayadoo kale uu xasadka kaga hadlayo. marka soomaalida waxay xasadka u yaqaaniin qofka bakhiilka ah, qofka wax ma bixiyo waa xaasid. marka sida la rabo, sida sharciga ah, xasadka bakhiil miya hadduusan ahayn, tacriifka uu qaadanayo muxuu yahay? بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أخي أبو بلال. وكم هصنت سؤال شاس. نعم، فرق وين بقول حياة حسد كمعنيه حاجة شرعية iyo luqada mataqaana waa luqa iska cusub kulay waa dadkii hore saameynahay, laakiin hadda luqadii Soomaaliga way isbedeshay, wax badan baa macaanidiisii u isbedelay. marka xaasid iyo bakhiil waa laba shay oo aad u kala fog weeyaan. xasadku sida uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, diintuna sheegtay, waxaa la yidhaahdaa an yatamana al-insaanu أن تزول النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لشخص ما. وحلو تعرف فيها تمني زوال نعمة الغير. إنه قفك تمنيه نمعي إلهي قفك لسي إنك ترترنتو إنك بابادو إنه واي نمعلاس نمعلا واحد دونهاتو عافيمات بين نقون كرتا، حولي نقون كرتا، دين بين نقون كرتا، علمي بين نقون كرتا. مركا نمعلا إنه قفك إلهي قفك إنه وايو تاوي معنى هذا تعريف كلمة الحسد. اوكي. يعني كلية مراتب ما لها مسا يعني انت تعريف كام علماء ذوي قيب يعني حقيقة مراتب وسميان إلى مراتب صدحة. اوكي. أي وسميان من دوا شيخنا هرو حويان كو إنه قفك تبنيو نمعذا قفك إلهي سي إنه وايو حتى هدين يسوي هلين. وكوحهم ويان مرتبط وحن توحهم ومدوي إنه تبنيه نمعذا قف قال إنه كقاضي حتى يسوي سنين. مرتبط ذاك الحويان إنه تبنيه إنه إسنا هستو نمعذا إلهي قف كودايو إسنا يضاك الإسنا وصيه، لكن هدو يسوي وايو وصنقف كاسنا وايو أو أي إسلا دجان لو ذي بقى يودو ويان طالفت هذا وحسد مذمومة وعنت يضنا. مرتبطة صدحات وقفك إنه تبنيه نمعذا إلهي قفك كلاسي إنه إسنا قدايو إساقنا تاسو كلاسيو. مركا تامق عيدا وحال هذا أف صوماليقا وحال ولا كمشو، أف عربينا وحال ولا الغبطة. وأنا تي حديث كنا بوكوشاقي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله علما ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. مركا إلهي حولوسي وبحنيا علمه بسي علمي وكعمل فليا ونا بريا لماذا قفكي تبنيه إلهو يايسيا نبي حولو وأرن في عن مناها حمله. مركا صدح لا مرتبه أينو كودين كرا إن شاء الله. نعم هذا سوكل إنه إلهي كسيو يعني. نعم هذا وكل إلهي كسيو هذا اسمين الله قادم. أوكي صح. يعني فرق هنا. labada ruux in laga qaado iyo in hadii aan la siin waayo labadana laga wada qaado. marka labadu wuxuu yihiin ka damban uu fiican yahay. xukunka waa gaari doonaa, yani xukunka oo sharciga islaamka, yani xaguu gaarsiinaya ma dambi iska caadimiya? ma xasadku xaqiiqatan waa dambiyaalka waaweyn ee kabaa'irta ayuu ku jiraa. وانا دنبي وهريي لغو عاسيي الله سبحانه وتعالى ودنبي إبليس وكو قالوبي
markuu yidhi ma garanaysay asjudu liman khalaqta tiinan ilaahay markuu yidhi isjudu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin aayad badan baa kusoo arooray ana khayru minhu khalaqtanii min naari wakhalaqtahu min tiin macnaato wuxuu yihi anaa ka khayr badan mancan wuxuu ku xasday nimcada ilaahay siiyey marka wuxuu ahaa xaasadku dembigii ugu horreeyey ee ilaahay lagu caasiyo subxaana wa tacaala waxaana ku gaaloobay oo raxmaddii ku waayey shaytaan ama ibliis ayaa ku waayey marka waa dembi weyn oo kabaa'irta waaweyn buu ku jiraa maxaa yeelay nimcada ilaahay iyaad rabtaa inaad tiito khaaliqii wuxuu qofku siiyaad rabtaa inaad taraabo kaanama inaad ku haysato xukunka ilaahay rabbigii abuuray ee khaaliq ahaa ee nimcada qaybinayay baad leedahay maya sax ma ahayn in kaa la siiyo subxaana allah macnaa marka dhinac loo eego kufri bay fooda la gelaysaa kaanama inaad leedahay uma qalma ninkaa waxaa in la siiyo allah isagaa siiye subxaana wa tacaala wa huwa axkamu lxaakimiin wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa min cibaadihi allahu akbar yani asbaabta yani badanaa keenta inuu qofka xanuun noocaas ah ku dhaco sababtoo ah waa marad oo xanuun ah oo maaragta nafsada gala asbaabaha keena asbaabtu way badan tahay xaqiiqatan asbaabta xaasidnimada keentaay aada bay u badan tahay waxaa ka mid ah asbaabta ugu asaasan ugu waaweyn qofka inuu uu qabo cadaawad sababka dooni cadaawad ha lahaato iyo xiqdi uu qabo sababka dooni ha lahaato markaasuu bilaabaya inuu xasdo xasadka cadhadii iyo colkii waxaa ka dhalan waxay dhalinayaan inuu xasadnimo meesha inay ka dhalato ayay bilaabayaan waana sabab weyn oo asaasi ah marka la yidhaha asbaabta xasadka keenta walihaada ninbaa wuxuu necab yahay reer mathalan soomaali baa nahay qabaayil iyo balaya baas baana lagu imtixaanay xaruun la yidhaha qabiilo markaa nin reebela reerkaad necab tahay qofkiibaa iska xasday waxaad leedahay maxaa kaas reebel loo siiye waxa allah huwa aladi actaa an tactarid calaa xukmi illah maxuumka ilahay baad cadu caaridi ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala taasa waxyaalaha keenay ka mid tahay waxaa ka mid ah qofka inuu yahay mutarafic uu doonayo daa'iman wuxuu doonay dadka inuu ka sarreeyo isagu ayuu rabaa qof ka koreeya inuu arkaba ma rabo qofkii ka koreeyana wuu xasdi ka asbaabta keenta ayay ka mid tahay dabcan waxaa la mid a inuu qofku madaxnimo jecel yahay iyo inuu daa'iman dadka ugu horeeyo inuu jecel yahay tii horan lamid sheegna bay lamid tahay waxyaalaha keena xaasidnimada waxaa ka mid a xubu dunya adduunya jacayl wixii ninka ilaahay uu nimco siiyaba wuu xasdaya wuxuu leeyahay maxaa loo siiyey aniga muxuu waa sidii magaranasay kuwii gaalada ahaa nabiga ku xaasiday sala allahu calay wasalam markuu ilaahay uu siiyey nabinimada iyo rasuulnimada kibirka ayaa ka mid ah inuu qofku mutakabir yahay taa marka waxay keenaysaa inuusan ogolaanin qofna inuu ka fiicnaado ayay keenaysaa waxaa ka mid a dad baa jira sharaniina badabcihim sharku ama ha kasbadeen ama ha ku dhasheenba isaga ayaa shar buuba ka samaysan yahay iyo cadho mathal baa waxaa la sheegaa soomaalidii hore nin baa wuxuu yidhi cunugkiisa geed kasoo dhacay markaasuu yihi geedkayaa kaasoo riday markaasuu yihi aabba anaa kasoo dhacay cidina igama soo riday markaasuu yihi geedka cid ma hoos joogtay wuxuu rabaa inuu qabsado qofkii geedka hoos joogay maya buri qofna geedka ma hoos joogay wuxuu yihi haddaba geedka banaanka shishisa wax marayay wadda agtiisa xataa marayay ma jira wuxuu rabaa inuu qofku qabsado rabaa dad marka waxaa jira sharka iyo cadhada iyo xaasidnimada ay ka buuxdaa jira marka taana waxyaalaha xaasidnimada keenta ayay ka mid tahay waxyaalaha keena waxaa ka mid ah xaqiiqatan qur-aankuna wuu ka sheekeeyey xasada min cindi anfusihim oo markii yahuudda laga sheekeynayo qoladii magaranasayay diideen nabiga inay rumeeyaan mukhaaladada qofka inuu asdiqo iyo asxaab xaasidiina inuu ku dhex jiro oo marka ay usoo gudbiyaan xaasidnimadii oo ay baraan taa lafteeda waxyaalaha laga qaado ayay ka mid tahay xaasidnimada ama ururada maclasaf yani wax laga xumaado waxaa ah urur sheeganaya islaam mathalan ama dacwo oo haddana atbaacdiisii baraya karaahada dadka kale in dadka kale la karaho
dadka kale in la xasdo khayrka inaan la ogolaanin inaan dadka la jeclaanin bimacnaa waa musiibo marka qofki ilmihi maxaa lagu tababaraya bedel intay khayr bari lahaayeen iyo maxabiya kalgacayl cadaawa la baraya waadna arkaysa xaqiiqatan maca lasaf waa musiibo weyn wey taana naam raad markii yani cudurka noocan ah marka uu jiro raad lagu garta ma leeyahay marka raadadkiisu aathaartiisu aad bay u badan tahay mujtamaca ama afraadaba intuba aathaar beleen waxaa kamid a akbar athar oo uu keenay xaasid waxaa kamid a qofka diintiisa uu khatar gelinaya rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yihi daba ilaykum daau lumami qablakum albaqdaa walxasad waxaa muslimiinta ku dhacay buu nabigu yuri sal slam cuduradii dadkii hore diimihii hore haystay umamihii hore oo maxay ahaayeen cudurkaas yaa rasuul allah albaqdaa waa cadhada iyo walxasadu xasadka nabigu wuxuu yihi sal ly slam markuu ka sheekeynayey laa taxriqu shacar inaha alxaaliqa buu wuxuu ku tilmaamay midaas inay tahay xaaliqa tii ciiraysay markaasuu yihi laa taxriqu shacar walakin taxriqu diin waxay goynaysaa ama ay jaraysaa diinta qofka ee timaha looma jeedo idan taas waa mid waa aathaarta ugu muhiimsan waa diinta qofka ayuu khatar gelayaa marka qaarkood hadduu xaasidnimadu qofka ay ku weynaato inuu diintaba ka baxaa ayaaba khatar uu ugu sugan yahay ama diinta ka saaraya rasuulku wuxu uhi sal ly slam laa yajtamicu iimaanun walxasadu fi qalbi rajul xasad iyo iimaani hal qalbi kuma wada kulmaan ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa kamid a khayrkaa yaraada khayrka markuu xasadka hadduu bato khayrkaa yaraada xumaanta iyo cadhaduna mujtamaca way ku faaftaa oo waxyaalaha uu keena xasadna kamid tahay sharka oo bata oo dadkii iswada xasdaan oo kala jeedsadaan marka khayrkaa kor loo qaadayaa sharkana wuu badanayaa iyo cadhada iyo iska hor imaatinka ayaa badanaya waxyaalaha khatarta waxaa kamid a cadhada ilaahay buu keenaa xasadku qofka xaasidka wuxuu kasbanayaa cadho ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kale uu gurubsanayaa oo badan dembiyaal aada fara badan ayuu gurubsanayaa maxaa yeelay nabigu wuxuu yihi sal ly slam alxasadu yaakulu alxasanaat kamaa taakulu naaru lxatab yacni xasadku wuxuu cunaa xasanaadka iyo wanaagu cunaa wixii camala saalix la timid sida naarta ay u cunto geedaha lagu shida ay u cunto ayuu xasanaadka u cunaa xasadku waa musiibo weyn weyn xaasidku dadku ma jecla xaasadku wuxuu keenaa qofka xaasidka in laga fogaado oo laga cararo oo lala calaaqa lala yeelanin cadho dadkeena nacaan oo ay ka tagaan ayay keentaa ilahi ha naga badbaadiyo subxaanahu watacaala walaha nabigu wuxuu yihi sharu naasi man tarakahu naas man yubqiduhu naasu wayubqiduunahu nin dadkana u cadhoon isna dadka uu necab yahay dadkuna way necab yihiin kaasaa dadka u shar badan markaa sifada xaasidka waa saas wey dadkuna way necab yihiin isna dadku necab yahay waayo qof kasta khayr lama doonaya aslan waxyaalaha khatarta uu keena xasidka waxaa kamid a wuu xan badan yahay qofka xaasidkii maanta o dhan wuxuu ka sheekeynayaa qofkii u xastay wuu xamanaya wuu ku been abuuranaya wuxuuna samaynin buu ka sheegaya waa waxyaalaha xaasidnimada waxa o dhan shaydaannimada keena xasadka iyo uu shaydaanku magarsayo uu ku booriyey ayaa keenaya daa'iman waxyaan aragnay anigu laftida shaahid ka ahaa waxaan dhicin oo aan jirin qof ku been abuuranaya waxaas igu sameeye leh kumana samayn waa mustaxiil waa xasadka keenaya aathaar aada xun buu leeyahay qofka hadduu arko qof kale oo xasdaya oo xaasid ah mowqifka la rabo inuu ka qaato mathalan waxaan arkay qof xasadnimo badan oo maaragta cudurkaas qaba yani muxuu waxaa ugu weyn qofkaasi loo dardaarmay waxa horta inuu sabro asabr maxaa yeelay musiibo kastoo kugu dhacda dee waxaa la yihi sabra la yihi isbiruu wasaabiru sabarkuna fadl badan ayuu leeyahay oo ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala midda labaad inuusan ku dhicin buufis waxay af soomaaliga cusub yihahdaan yani inuuna cabsanin ee ilahay inuu tala saarto subxaana watacaala hebel baa xasdaya hebel baa shar igu maqan inuusan qalaq iyo walbahaar ku dhicin ilahay inuu tala saarto atawakulu cala allah subxaana watacaala ilaahay inuu magan galo
dhib kastoo kugu dhaca yaad magan geli allah subxaanahu watacaala afaman yujiibu almudara idaa dacaah yaa ajiiba qofka markuu dhib ku dhaco allah subxaanahu watacaala idan ilaahay magan gal adkaartii sunnaha ee nabiga ka soo aroortayna akhriso ilaahay baa kaa badbaadinaya sharka qofka xaasidka waxaa kale oo munaasaba in loo sheego ama qofka xaasidkaa adna inaadan xaasidnimo kala sameynin ooda ku xadgudbine cadaalad inaad samayso adna inaad isku daydo inaad garsoor iyo cadaalad samayso adoon isna hadduu xastay anigana waan xasdayaa ama waan u cadhoonayaa ama col baan u noqonaya adoo odhanine adigu aad ka fiicnaato qur-aanku wuxuu leeyahay idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim tawjiiha ilaahayga qofka inuu qaato oo qofka u sameeyo mataqaanaa cadaalo u sameeyo bal heer kasii sarreysa middaa diinteenu ixsaankaa ku badan ixsaan bay diinteenu martabada ugu weyn alixsaanu ila alxaasid ya marka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu xishoodaba haddaad isagu ku xasdayo adna aad ixsaan u samayso inuu markaa taasi ay ku kalifto ama inuu magaransayo uu ka istaago xaasidnimadii waxaa kale oo loo baahan yahay qofku inuu sameeyo marka qaarkood ishu waa xaq xaasidkuna ishiisu waa adag tahay marka inuu ruqya sharciya isku sameeyo ruqya sharciya qur-aankana inuu isku akriyo ayaa wanaagsan midda labaad ha u noqonin sabab inuu xaasidka ku xasto nimcada ilaahay kusiiya ha uga sheekaynin waxaa jira dadka qaarkii oo carabkoodu uu u keeno dhibka yacni wuxuu leeyahay kanaan haystaa xoolaan leeyahay halkaan ka baxay aanu nimca marka hadhow waxaad keenaysaa in dad badan ay ku xastaan markaa qarsan nimcada ilaahay ku siiyey oo ha ka sheekayn waayahay qof hadduu kuu yimaado sheekh oo ku dhaho ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu igu ibtileeyey xasadka maxaa u sheegi lahayd horta waa qof fiican qofkaba hadduuba sheegto cudurka ku dhacay waaba daawada bilowgeedii weeye waa daawo bilowgeed waa oo taasi xal waa la heli xalka waxaa ka mid a inaad u dardaarka ugu horreya ilahi inu ka cabsado subxaana watacaala oo uu ogaado xaasidnimadu inay tahay sifa madmuuma oo xaaraan islaamka kuwa inay tahay talabaad inuu ninka uu xasdayo xaqiisa inuu siiyo oo uuna xadgudubka ka daayo cadhada iyo buqdiga iyo xumaanta qalbigiisa ku jira inuu iska nadiifiyo oo iska dahiro inuu ogaado xasadkani inuu isaga dhib ku yahay waxaa la yihi qofka xaasidkii habeenkii ma seexanayo kii maxsuudkaana wuu jiifaa ka xaasidkaa dhiikar iyo sonkor iyo cuduraa ku dhacaya laakiin ka maxsuudkii maba ogaba idan hadi khasaara fi dunya wa fi laakhira marka midaana waa midda loo baahanya inuu ogaado waxyaalaha waxaa ka mid a inuu ku waansamo loo baahan yahay ama uu qaato inuu ammaano ixsaan u sameeyo qofku xastayo isagoo naftiisu rabin nafta waa inaad khasabto والنفس كالطفل إن شب على الرضاع وإن تفطمه ينفطمي يعني وحويا النفط واسد الموكل واحد سميسا هي سمينسا مركا النفط خصب يعني مقرن ساي والنفس والشيطان حوري وعصهما بيت كي كلا يشك بردا كوتشري وحور مقرن ساي النفس والشيطان والنفس وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضا كالنصح فالتهمي يعني نفط إيام قرسها الشيطان كبا لو هذا مخالفة سمي تاسع كمذا طبعا أسباب تحسدك اسكيره كبير عزة نفس ترفع يدو يجعلك وحسكيره إخلاص اسكو دينا سميسو قرآن كلاه آخر كتاب كلاه سبحانه وتعالى السجد داوكو نقنية حساب تآخر إعقاب تكاهر رسا حصوص نوم من دوانا دوغاتو أعماش هذين واد بربورينيسا أوزار يدنون واد كسبانيسا من داسنا وخطر ويه إن آد إلهي بريدو صدقنا آد بحسو أو حيالها داود وكوغو نقون كرا أما داود ونقون كرا قفك حاسدك شيخ جزاك الله خيرا كلمة وآد في عن وحان إلهي كرجيننا سبحانه وتعالى إن أمدان إلهي كو أنفعه يا رب العالمين أنا قن إلهي نو أنفعه ميزانك جنا يوم لا ينفع ولا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه إلهي كودر إن شاء الله وجزاكم الله خيرا
jazaaka allahu khayr akhi abu bilaal adiyo camalka iyo juhdigana aad samaynayso ilaahay ha kaa dhigo adigana miftaax lilkhayr miqlaaqa lishar insha allahu tacaala وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.